arrinta iyada ah waxay keentay in xildhibaan Cawil uu madaxweynaha uu weydiiyo su'aal aad moodid inay tahay ama ahba aflagaado lagu duminayo systemka dawli ee Puntland ka jira maxaa yeelay hadalka soo u dhigay xildhibaanku wuxuu ahaa madaxweyne adiga iyo ku-xigeenkaaguba ma iscasishaan intaanan annagu tallaabo ka qaadin ka baarlamaan ahaan asagoo sidii speakerkii oo kale ku hadlaya codkii golaha oo dhan taas waa dembi cad oo lagu duminayo dalka su'aalna maahan waxa kale uu ku daray xildhibaanku waa wuxuu ka mid yahay waxa weeye waa wakiil shacab weeye shacabkii uu sharaftooda iyo magacooda huwanaa wuxuu yiri shacabweynaha Puntland waxaa ka xumaatay akhlaaqdii iyo dhaqankii arrinta iyada ah waxay aflagaado ku tahay dadkii uu matalayay sharciyan hadii la daba galana kuma si matali karo كل أنا جاي من متلجو مع شعب كنا كاملة سببته هو يقفل الجادية سير مصير كي هو ولا نكره أنت أصروح يطلع قالها وكم دياي أو لحظة ده كوكا في أي أطلع وحيلاقيهم جودي أن شعب اللي ينقولوا جودي أن شعب شغال يسوي مقبصات وين أبرتشاس لسيا شعب وين هاللوج فين وين أبرتشاس لسيا هذيك كلته برلمان كده ما أنت وضوح النغنيان وحلمت السجع هذين أرنتا أيضا كبيرين ودتكي أما شرفت لها وشعبك لها وأود لها وأي مثليين هذين خلط خدعي أبرتشاس كتير كرين ده معان وحين نغني يقول وحلمت